Dabiicaddu weli kama dhammaan inay leedahay xeebaha ugu qurux uguna cajaa'ibka badan adduunka. Waxaad muuqaalkeena ku arki doontaa xeebo soo jiidasho gaar ah leh sida xeeb iftiin uu ka soo baxo, xeeb midabkeedu uu yahay casaan, iyo xeeb kale oo leh ciid cad kuna teedsan hareeraha baddeeda oo dhan. Haddaba maanta waxaan idiin haynaa 7 xeebood ee ugu qurux uguna cajaa'ibka badan adduunka. Xeebta Badu, Maldives. Badu waa xeeb ku taalla Maldives, waana mid ka mid ah goobaha ugu cajiibsan uguna quruxda badan adduunka. Halkan waxaa ka jirta dabiicad gaar ah, taasi oo ah natiijo ka dhalata iftiinada iyo iftiinka ka soo baxa biyaha, waxaana lagu yeeraa baddii xiddigaha. Xaqiiqdii, iftiinadan waa muuqashada qaar ka mid ah balankatoonnada lagu magacaabo bioluminescence, taasoo ku jirta bacaadka xeebta, sidoo kalena qabsata xitaa dhagaxaanta. Waxayna u soo saaraan iftiinka maalintii 2 midab oo kala ah casaan iyo buni. Marka uu soo galo mugdiga habeenkii, waxay isku beddelaan midabkan buluugga ah ee aadka u cajiibka badan, kaasoo marka lagu socdo u kala firdhisma xiddiga dhalaalaya oo ka soo baxa biyaha. Xeebta Badu waa meel ay aad u xiiseeyaan dadka hirar fuulidda jecel, maxaa yeelay marka ay ku socdaan mowjadaha dushooda sare, waxaa u suuragal ah inay isaga qaadaan sawirro qurux badan oo ay la socoto dabiicaddan gaarka ah ee aadka u cajiibka badan. Xeebta Maho, Saint Martin. Xeebta Maho waxay ku taallaa meel u dhow garoonka caalamiga ah ee Amir Juliana ee dhaca jasiiradda Saint Martin, waxayna ku raaxaystaan dalxiisayaasha soo booqda xeebta jawiga aadka u quruxda badan ee ka jira halkan, taasoo ay la socoto daawashada muuqaalka aadka u cajiibka badan ee soo degista iyo kicidda diyaaradaha ee ka socda garoonka xeebta u dhow ee Amir Juliana. Tijaabadan isbiimeynta ayaana ah in waqti lagu qaato xeebta Maho halka diyaaraduhu ka degayaan korkaaga sare, waana sidii inay xeebtu tahay garoonku degista diyaaradaha. Dadka dalxiisayaasha ee jooga xeebta ayaana la ogeysiiyaa ka hor inta aysan diyaaradaha ku soo degin garoonka si ay feejignaan ugu yeeshaan. Waxayna taasi beddelkeed dadku ay sameeyaan inay u soo kala cararaan diyaaradda si ay ugu qaadaan sawirro iyo muuqaallo, kadibna ay u keedsadaan dhacdooyinkan oo kale ee dhifka ah. Halista sawaxanka matoorada diyaaradaha ka soo baxa ayaana ah mid waxyeeleyn karta dhegaha qofka u dhow diyaaradda, ayadoona tanina ay noqonayso ugu dambeyntii tijaabo khatar ah laakiin aad u cajiib badan. Xeebta Quraarada, Mareykanka. Waa xeeb ku taalla meel u dhow magaalada Fort Bragg ee gobolka California. Horaantii qarnigii 20aad, dadka deggan magaalada Fort Bragg waxay ahaayeen kuwo ku tuura xeebtan qashinka, ayadoona lagu tuuri jiray qashinka guryaha, dhalooyinka, qalabyada, biraha la isticmaalay, maraakiibta, iyo baabuurta duugga. Maamulka dowladda hoose ee California ayaana ka bilaabay xilli dambe olole iyo howlo lagu nadiifinayo xeebtan, waxaana lagu guuleystay in laga qaado qashinkii aadka u tirada badnaa badankooda, ayadoona intii soo hartay ay iscunid ku sameeyeen hirarka biyaha xeebta badweynta Basifiga. Waxayna taasi ugu dambeyntii ay ka dhigtay inay isku beddesho xeebtan quruxda badan ee soo jiidashada leh ee laga helayo dhalooyinkan midabada aadka u cajiibka badan ee aad moodeysa inay yihiin sidii dhagaxaanta qaaliga ah. Xeebta Rabida, Jasiiradaha Galapagos. Rabida waa jasiirad yar oo volkaano ah oo ka mid ah jasiiradaha la isku yiraahdo Galapagos ee hoos yimaada dalka Ecuador. Jasiiradda Rabida waxa ay leedahay oo ku yaalla xeebtan cajaa'ibka badan ee ku soocan bacaadkan uu midabkiisu yahay casaanka. Sababta midabka gaduudan siisay xeebtan ayaana ah heerka aadka u badan ee biraha ku jira biyahan, waana halkii uu kaga tagay Christopher Columbus wiilkiisa intii uu ku jiray safarkiisii ugu horreeyay ee Ameerika. Jasiiradda iyo haradeeda leh biyaha cusbada waxaa lagu tiriyaa meel ay degan yihiin shimbiraha leh midabka casuurka ee flamingo, sidaas oo kalena ay ku nool yihiin nooleyaal badan oo kala duwan. Xeebta Big Major Key, Bahamas. Big Major Key waa xeeb ku taalla jasiiradda Exuma oo ah mid ka mid ah jasiiradaha Bahamas ee dhaca badweynta Atlantikada. Waxayna caan ku tahay xeebtan biyaha buluugga khafiifka, bacaadka ciidda jilicsan ee ku teedsan xeebta, iyo lahaanshaha keymo dhireed aad u cajaa'ib badan. Big Major Key waa mid ku soocan bilicda jawigeeda quruxda badan ee ka arkidda xeebteeda muuqaalo aragga u roon, waxaana u suuragal ah dalxiisayaasha daawashada bilicda badweynta,
jasiiradaha deriska ee u dhow xeebta iyo doomaha raaxada ee aadka u qaaliga ah ee jooga halkan. Xaaladda jawiga dabaal ee xeebtan ayaa ah mid aad u fiican, kaasi oo leh dhul siman, hirar aan badnayn, iyo qulqulka ka jira biyaha hoose oo aanan ahayn mid aad u xooggan, taasoo ugu dambeyntii ah mid aad ugu wanaagsan inay ku dabaashaan carruurta iyo dadka dabaasha baranaya ee bilowga ah. Ku qaadashada fasax jasiiradaha Bahamas waa mid wanaagsan waqti kasta oo ka mid ah sanadkii oo dhan, laakiin xilliga uu jiro ciriiriga ayna yimaadaan dalxiisayaal fara badan waa xilliga bartamaha Nofeembar ilaa iyo bisha May. Doofaarada ku nool xeebta Big Major Key waa sheeko kale oo aysan cidna aqoon siday ku imaadeen xeebta, laakiin dadka qaar ayaa qaba inay keeneen doofaarada oo ay kaga tageen badmaaxyaal imaaday xeebta xilli hore. Si kastoo ay noqoto, joogidda doofaarada ee xeebtan ayaa keentay in lagu magac daro xeebtii doofaarada. Xeebta Cas, Shiinaha. Waxa ugu horeeya ee maskaxdeena ku soo dhaca markii aan xeeb maqalno waa ciidda aadka u jilicsan ee deriska la ah dhulka badda. Hase ahaatee, xeebta Cas ee ku taalla Shiinaha waa mid ka duwan xaalkeeda sidaas, waxaana xeebta Cas loogu bixiyey daraadda isbeddelka ku dhaca midabka dhirta Sweet Salsa ee gaduudashada, taasoo ay u keento heerka cusbada aadka u sareysa iyo heerkulka hooseeya ee ka jirta halkan. Koritaanka bixidda geedaha waxa uu bilowdaa inta lagu guda jiro bilaha Abriil ilaa iyo May, markaasoo midabkoodu uu yahay cagaar, waxaana ay isu beddelaan casaan marka la gaaro xilliga deerta. Xeebta Cas waxay kulmisatay lahaanshaha bilicda dabiicadda, muuqaalka indhaha soo jeedanaya ee isugu jira webiga, dhirta, geedaha, nooleyaasha iyo shimbiraha kala duwan, taasoo ugu dambeyntii siinaysa inay noqoto meel ay adag tahay in la rumaysto inay ka jirto adduunka. Shiinaha ayaana halkan u aqoonsaday inay tahay keed dabiicadda lagu ilaaliyo, waxaana ku nool 400 oo nooc oo nooleyaal duurjoog ah. Intaas waxaa usii dheer inay tahay hoy iyo meel marin u ah 250 nooc oo kala duwan oo shimbiro ah, kuwaas oo sanad walba ka soo haajira bariga Aasiya una haajira ilaa iyo qaaradda Australia. Waxaa sidoo kale lagu ilaaliyaa goobtan shimbiraha halista ugu jira inay ka dabar go'aan adduunka. Tan iyo sanadii 1984 oo ahayd markii la aasaasay magaalada Banjin, xeebta Cas waxaa la siiyey mudnaan, ayadoona lagu dadaalay sidii loo horumarin lahaa, sidaas oo kalena loo ilaalin lahaa dabiicaddeeda gaarka ah. Waqtiga ugu fiican oo ay dalxiisayaasha soo booqdaan waa xilliga deerta, markaas oo ay dhirta goobtan oo dhan isu beddesho mid aad u wada guduudan. Xeebta Cas ayaana noqonaysa mid ka mid ah meelaha ugu bilicda iyo daawashada badan oo ay booqdaan dadka u dhashay Shiinaha. Xeebta Qarsoon, Mexico. Xeebta Qarsoon waa xeeb aad u qurux badan oo ku taalla gobolka Nayarit ee dalka Mexico. Xeebta Qarsoon qani waxa ay ku tahay dhirta iyo xayawaano kala duwan oo aad u cajaa'ib badan oo ku nool hareeraheeda. Sababta magaca xeebta Qarsoon loogu bixiyey ayaana ah in xeebtu ay gebigeedba ku qarsan tahay godkan ku dadan dhirta cagaaran, natiijo ka dhalatay qaraxyo iyo tababaro ay ciidamada Mexico ku qaadanayeen bilowgii qarnigii 20aad ayaa keentay haraadiga godad badan oo ku haray xeebaha jasiiradahan. Xilliyadaas qaraxyada cidna ma aysan degnayn jasiiradda. Dowladda Mexicana waxay u aragtay meel ku habboon ciidankeeda oo ku wacan tababarka. Soo badashada dalxiisayaasha imaanaya sanadihii dambe ee xeebtan ayaana ahaa kuwo aad u fara badan, waxaana lagu qiyaasaa tirada dadka dalxiisayaasha ee maalintii xeebtan soo booqda ku dhowaad 2500 oo qof. Godka xeebta uu ku yaalo ma ahan mid bannaanka iyo hareeraha jasiiradda laga arki karo ilaa kor marka laga eego mooye, taasina waa quruxda cajaa'ibka iyo waxyaalaha ay kaga soocan tahay xeebaha kale. Dalxiisayaasha iyo dadka soo booqda ayaana ku qasban, haddii ay doonayaan tegidda godka xeebta Qarsoon, in ay dabaal ku soo galaan kana soo xalushaan qaybta dhanka hoose ee xeebta badweynta jasiiradda ka furan. Sawiro iyo muuqaallo laga soo qaaday xeebta Qarsoon oo baraha bulshada la soo geliyey, kadibna si aad ah ugu faafay ayaa xeebta Qarsoon ku kasbatay soo jiidashada dad aad u fara badan oo ku nool daafaha dunida. Playa del Amor, xeebta jaceylka, waa magaca kale ee xeebta Qarsoon loo yaqaan, waxaana iminka xeebtu ay tahay mid ka mid ah meelaha dalxiisayaasha ay jecel yihiin inay ka booqdaan adduunka. Ugu dambeyntiina asxaabay, halkan ayuu noogu egyahay muuqaalkeena. Fadlan haddaad ka heshay muuqaalka like saar, kana soo dhiiba aragtidaada xeebtii aad ku daabatay muuqaalka ee aad jeclaan lahayd inaad booqato maalin uun. Hana hilmaamin inaad kanaalka Caalam subscribe saarto si aad ula socotid muuqaaladeena soo socda. La kulan dambe oo xiiso leh.